Maxaa ka jira in sanad culus oo ku socotay SSC ay gacanta u gashay Somalilan? Maxaa dib u dhigay duulaankii madaxweyne Muuse Biixi ee la filayay in lagu qaado magaalada Laascaanood? Maxay tahay shanta istiraatiijiyadood ee cusub ee uu ku wajahayo dagaalkan si uunan si degdeg ah ugu guuldarreysan colaadda SSC? Halkan ayaan ku dul istaagi doonaa qodobada laf-dhabarta u arrinta. Warbixinta sheergaree la wadaag saaxiibada aragtida haddana qaybta hoose noogu reeb. Xogta la helaya ayaa waxay muujinaysaa in heerka ugu sarreeyay ay gaareen qorshayaasha gulufka ciidan ee ka socda aagga magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, waxaana taliska ciidanka Somalilan qaarkood ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen sanad ciidan oo ku socotay aagga magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, isla markaana loo waday ciidamada SSC. Sida ay xaqiijinayaan xogaha laga helayo aaggaasi, waxaa gacanta lagu dhigay gaari weyn oo nuuca xamuulka qaada, isla markaana waday sanad ciidan oo rasaas u badan kuna sii jeeday magaalada Laascaanood, iyadoo weliba sanadaasi ay ahayd mid loogu talagalay in la siiyo ciidamada SSC ee dagaalka kula jira Somalilan. Taliska militariga ayaa waxay sheegeen in howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen wadada isku xirta magaalooyinka Laascaanood iyo sidoo kale Garowe ay gacanta ku dhigeen gaarigan oo ku sii jeeday magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Waxayna sheegeen inuu ahaa mid khatar badan oo siday rasaasta hubka culus oo la doonayay in ay ku howlgalaan xogaga SSC difaaca kaga jira magaalada Laascaanood iyo sidoo kale aageeda. Waxaana sidoo kale xogaha aan helnay ay tilmaamayaan in ciidamadu ay u diyaargaroobeen sidii ay ugu dhaqmi lahaayeen xogta ay heleen ee ku aadan sanadaas ciidan iyo sidoo kale qorshaha laga leeyahay aagga duulaamada cusub ay ku wajahan yihiin iyo tabta iyo qorshaha cusub ee ay wadaan xogaga SSC ee markaan ku sugan magaalada Laascaanood. Taliska militariga ayaa sheegay inay ku jiraan feejignaan dheeraad ah ayna sii wadi doonaan howlgallada qorsheysan ee lagu beegsan doono ilaha kaydka iyo sidoo kale sanada ciidamadu ay ka soo galayso deegaanka, iyadoo weliba si gaara loo bartilmaameedsanayo qaab walba iyo nooc walba oo ay gurmad ku heli karaan xogaga SSC. Xogtu waxay intaa ku sii daraysaa in dhaqdhaqaaqyada ciidanka ee ka socda gobolka Sool ay sidoo kale khatar weyn ay ku yihiin danaha Somalilan ee ku aadan sidii ay u gaari lahayd yoolka ay higsanayso. Marka laga soo tago hubkan iyo sanadan ciidan ee ay taliska militarigu sheegeen, waxaa taagan su'aal ah xaggee ayuu ku dambeeya duulaankii ay militarigu ku dhawaaqeen iyo sidoo kale qorshaha xukuumadda Muuse Biixi ee dib u qabsashada magaaladaas. Muuqaalka like saar sheergaree la wadaag saaxiibada aan ku xasuusiye. Waxaa soo ifbaxaya in guux weyn uu ka dhex bilowday Somalilan, iyadoo weliba xisbiyada siyaasiyiinta qaarkood ay u muuqdaan in aynan sii taageeri doonin dagaalka Laascaanood, iyadoo weliba natiijadu ay u muuqato mid iska hooseysa marka la fiiriyo habka labada ciidan ee ishor fadhiya awoodooda iyo sidoo kale qorshayaasha xukuumadda ee ku aadan in aan la marinin falsafad fududeyn karta in awoodda ciidan wax lagu maamulo ama lagu raadiyo. Waxaa sidoo kale qayb ka arrintaasi in codaysyada iyo guuxa bilowday ay qayb ka yihiin bilaha qaarkood sida Garxajis oo ku celcelinaysa in ciidankeeda ay kala baxayso jid hore, isla markaana wiilasheedu aynan ku dhiman doonin Laascaanood oo ay u aragto in duulaan lagu qaaday aan ahayn mid siyaasad iyo sidoo kale dan gaar ah ama dan guud ay ugu jirto Somalilan, iyagoo weliba hoosta ka xariiqay in ciidamadoodu ay u baahan yihiin in ay iskaga baxaan aaggaasi, isla markaana ay fursad siiyaan dadka deegaanku inay danahooda iyo sidoo kale aayahooda iyagoo ay la wareegaan oo ka tashadaan. Arrinta kale ee soo ifbaxday qaybna ka culaysaadka soo kordhaya waxaa ka mid ah in awoodda ciidan ee magaalada Laascaanood ku sugan ay tahay mid aan la dhayalsan karin, taasoo Muuse Biixi ku qasbaysa in ciidanka iyo sidoo kale sanada ciidan ee Somalilan dib loo abaabulo, dibna loo xoojiyo, isla markaana la bilaabo hab walba iyo qaab walba oo lagu diyaarin karo is aruursi iyo sidoo kale isqalabayn iyo isdiyaarin xooggan oo lagu sameeyay cutubiyada ciidamada Somalilan ee ku sugan jiidaha hore ee difaaca iyo kuwa la geyn doona aagga dagaalka,
iyadoo weliba laga leeyahay dhowr qorshe oo ku aadan mideynta ciidamada, jihaynta dagaalka iyo qorshe walba oo ka qayb qaadan kara in tigidhada loo siibo SSC oo iyadoo dhaqdhaqaaqii ugu xoogganaa markaana ka wada aaggaas. Xukuumadda Muuse Biixi Cabdi sidoo kale waxay dareensan tahay in loo baahan yahay raadinta taageero caalami ah oo horseeda kaydka ciidanka ee dhinaca saanada iyo hubka dhaqaalaha uu u baahan yahay dagaalka intaba, iyadoo weliba dalalka gobolka iyo wadamo kaleba ay doonayso in ay taageero iyo galaangalba ay ku samayso oo ay ka raadiso. Waxaa sidoo kale jira burburin dhaqaale oo laba ujeedo leh, sida in dhaqaalaha laga burburiyo xoogagga SSC ee iskaabaya, kuwaas oo haddii muddo ay sii fadhiyaan ay suurtagal tahay in dhaqaalahooda iyo sidoo kale maamulkoodaba maaliyadeedba uu hoos u dhici karo, maadaama ay yihiin ciidan hal meel la iskugu keenay oo meelo kala duwan ka yimi. Marka dhaqaale burbur uu ku yimaado islamarkaana ay soo dhammaadaan lacagaha iyo sidoo kale dhaqaalaha ay soo dirayaan qurbo joogta iyo ururada iyo daljoogta intaba, waxa ay noqon kartaa in la helo fursad weyn oo si degdeg ah loogu maquulin karo ciidankaas, islamarkaana lagu heli karo in ay kala furfurtaan. Waxaa dhinaca kale dhaqaale burburka qayb ka ah mid saameeyay Somalilan, oo asna ah in hoos u dhac uu ku yimid wax soo saarkii iyo wax soo dejintii dekedda magaalada Berbera ee gobolka Saaxil, taasoo hoos u dhigtay wax soo saarkeedii wixii ka dambeeyay markii ganacsatada qaarkood ay bilaabeen in ay ganacsigooda u weeciyaan meelo ka tirsan dalka intiisa kale, iyagoo weliba doonaya in aynan saameyn ku yeelanin arrimaha la xiriira dagaalka oo isir nacayb isku bedelay, islamarkaana u muuqda inuu saameyn ku yeelanayo reero gaar ah oo si gaar ah ay xukuumaddu u beegsanayso. markan ka falcelinta dagaalka oo qabyaalad iyo sidoo kale qabiil u xuubsiibtay ayaa sababay in ganacsato badani ganacsigooda ay u weeciyaan dekedaha bartamaha Soomaaliya iyo sidoo kale bari sida Boosaaso iyo sidoo kale gobolka Mudug, Garacad, halkaas oo ay ganacsato badan u weeciyeen iyo sidoo kale kuwo weeciyay dhinaca magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose. Waxaa sidoo kale intaasii dheer in culaysaadku uu yahay mid marka ka dambeysa sii kordhaya. Waxaa sidoo kale shan ah oo istiraatiijiyadda dagaalka dib loogu dhigay ee dhinaca Somalilan ka mid ahaa in ay wadahadal iyo sidoo kale waanwaanba ay ku dayeysay xukuumaddu beesha jaamaca siyaad ee uu kasoo jeedo Mahad Cabaashe iyo sidoo kale aagga iyo goori dadka dega, kuwaas oo lagu riixayay in ay ka laabtaan tab walba iyo qaab walba oo ay kaga mid noqon karaan dhulbahantaha kale, iyadoo weliba loogu riixayo ujeedooyin ay ka mid yihiin in dagaalkaas kaga baxaan iclaamiyaan inay Somalilan lasii noolaan doonaan, iyadoo taasina ay sababtay in mar walba galaangalku intuu socdo hoos loo dhigo nooca xiisadda ee ka jirta aagga Laascaanood ee Sool. Xogaha la helaya sidoo kale waxay muujinayaan in istiraatiijiyadda ay qayb ka yihiin dagaalka dib loogu dhigay cadaadiska weyn ee xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ka haysta dhinaca dalalka caalamka iyo sidoo kale wadamada deriska, kuwaasoo cadaadis ku saaraya xukuumadda Muuse inay dib u gurasho ku sameyso qaab walba iyo nooc walba oo ka mid ah xeeladaha dagaalka iyo wajahida colaadda SSC, iyadoo weliba dalalka gobolka qaarkood ay ku dalbayaan ama ay ku cadaadinayaan in xukuumaddu ay wadahadal la gasho dadka kasoo horjeeda. Taas ayaana noqotay mid waagii oo galbeedka kasoo baryay ah oo aan suurtagal marnaba ka noqonayn dhinaca xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale talisyadiisa kala duwan, mana cadda sida qaabka iyo goorta ay dhinacyadu aqbali doonaan hanaan lagu wajaho colaadaasi. Cadaadiska dalalka gobolkuna waa mid heerkiisu u sarreeyo, waxaana cadaadinaya wadamo dana kala duwan leh oo qaarkood ay ku riixayaan Somalilan inay fuliso dano ayagu ay leeyihiin oo ku aadan aagga SSC iyo guud ahaan Somalilan. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa saacadaha soo aadan la filayaa in uu amro qorshaha ugu dambeeya ee ciidamada Somalilan ay ku gaarayaan dhulka loo arko inay yihiin xuduudaha. Maanta Jimcaha waa maanta Khamiisa, kulanka golaha wasiirada ayaa la filayaa in uu soo saaro fariimo degdeg ah oo ku aadan nidaamka iyo jihaynta iyo goobta iyo goorta ay ciidamada Somalilan u ruqaansan doonaan dirirta Laascaanood iyo sidii
ay gacanta ugu dhigi lahaayeen meelo kala duwan oo ka tirsan aagga ay Somalilan doonayso inay dib qabsato. Golaha wasiirada iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa gorfaynaya tab walba iyo nooc walba oo ay tahay in looga falceliyo arrintaasi. Kulanka golaha wasiirada ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirada gaashaandhigga, amniga, arrimaha gudaha iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo si gaar ah uga wada shaqeynayay arrimaha ICC. Muuqaalka sheer garee la wadaag saaxiibada aragtidaadu waxay kula tahay nabadgelyo.